waa maxay qorax madoobaad? qorax madoobaadku wuxuu dhacaa marka uu dayaxa maro qoraxda horteeda isagoo isku gudba qayb ahaan ama gabi ahaanba cadceedda horteeda. qorax madoobaadku natiijadiisu waxay noqotaa in qaybo dhulka ka mid ah uu daboolo hooska dayaxa. sidee ayuu qorax madoobaadku u dhacaa? sanad walba waxaa dhaca ugu yaraan 2 ilaa 5 dayax madoobaad. marka uu dayaxa hormaro cadceedda wuxuu isku gudbaa iftiinka qoraxda ee dhulka heli lahaa, taas oo sababaysa in hoosku dayaxa uu ku dhaco dhulka. hooskaasi oo toos ugu imaanaya dayaxa wuxuu ka dhigayaa cirkoo dhan waa inta ku aadan dhulka mugdi ama gudcur madow, kaas oo loo yaqaano ambra. markase uu hooskaasi aadku u weyn yahay waxaa loo yaqaanaa penumbra. heerka dhaqdhaqaaqa qoraxda dayaxa iyo dhulka dartood qorax madoobaadka waqtigiisa kama bato 10 daqiiqo ilaa 31 ilbiriqsi. dayaxu waxay ku qaadataa bil inuu ku soo wareego dhulka, balse ma jirto qorax madoobaad bil kasta dhaca. sababtu waxay tahay wareegga dayaxa uu ku samaynayo dhulka waa uu ka yara duwan yahay wareegga uu dhulku ku sameeyo qoraxda. sidaasi aawadeed qorax madoobaadka keliya wuxuu dhacaa marka uu dayaxa yimaado qoraxda horteeda oo wareeggooda uu isku aado. noocyada qorax madoobaadka waxaa jira noocyo kala duwan oo ku aadan qorax madoobaadka. qorax madoobaadka buuxa ee loo yaqaano total solar eclipse ama total eclipse wuxuu dhacaa marka iftiinka qoraxda uu gebi ahaanba isku gudbo dayaxa. haddaba si uu u dhaco qorax madoobaad buuxa, qoraxda dayaxa iyo dhulkaba waa inay ku saftaan xariiq toosan. kadibna dayaxu wuxuu qariyaa iftiinka cadceedda ee ku dhacaya dhulka. tanina waxay keentaa in hooskii dayaxa uu ku dhaco dhulka. inta lagu gudo jiro qorax madoobaadkaasi buuxa waxaad arkaysaa dayaxa oo hormaraya cadceedda ama qoraxda ilaa ay gebi ahaanteedba waa qoraxda ay ka qarsoonto. kadibna dayaxu wuxuu sii wataa socodkiisa si uu u dhaafo cadceedda horteeda. qoraxda, dhulka iyo dayaxuba mar kastaba isuguma beegmaan si wanaagsan. dhicitaanka qorax madoobaadka wuxuu bixinayaa xaaladda saxda ah ee lagu arkayo qolooca iftiinka ee ka imaanaya walax-cireedka loo yaqaano kuwiisa ee ku jira qayb ka mid ah koonka, midkaasi oo bixiya iftiin ka badan tan qoraxda ay bixiso trillion jeer.